kulanti wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada dhuumoodle Soomaali TV. badnaaxayaal u dhashay dalka Indonesia ayaa isniinta maanta ah isku dayi doona inay soo celshaan duubayaasha xogta diyaaradii Sarawijiya Air ee ku dhacday badda 2 maalmood ka hor iyadoo 62 qof oo rakaab ah ay saaran yihiin daqiiqado kadib markii ay hawada gashay. mas'uuliyiintu waxa ay tilmaameen aaga ay yeelaan duubayaasha xogta ee loo yaqaan santuuqa madow axadii markii ay ka soo saareen sagxad badeedka Boeing 737 500 samatabixiyaasha ayaa sidoo kale helay hub. mid ka mid ah ciidamada badda ee saaran markabka samatabixinta ayaa sheegay in baaritaanka uu dib u bilaaban doono isniinta iyadoo xaaladaha cimiladu ay soo hagaagayaan. waxaan ku soo koobi doonaa ayuu yiri ama ku soo koobi karnaa aaga baaritaanka maanta ilaa 200 ilaa 500 oo mitir oo ah bartamaha ayuu u sheegay TV-ga Comos. maalintii ugu horreysay waxaynu kormeernay 1.5 mitir ilaa 1 mitir 1 kiiloomitir marka laga yimaado isku duwaha waaweyn waxaan eegnay meelaha bannaanka ah ayuu yiri. Nhoyo Otuma oo ah baare ka tirsan guddiga badbaadada gaadiidka qaranka ee Indonesia KNKT ayaa sheegtay in mas'uuliyiintu ay rajaynayaan inay helaan santuuqa madow maanta. wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in diyaaradda laga yaabo inay sideedii ahayd ka hor intaysan ku dhicin biyaha iyadoo la og yahay in qashinkii ilaa iyo hadda la helay ay ku kala firdheen meel cidhiidhi ah oo biyaha hoostooda ah. ka mid ah baalaha diyaaradda ayaa la helay kadib markii dib loogu celiyay dekedda magaalada Jakarta maalintii Axadda ahayd. dhacdadan ayaa ah shilkii ugu weynaa ee diyaaradeed ee ka dhaca Indonesia tan iyo diyaaraddii 189 qof oo rikaab ahayd oo 2018 isla dalkaasi ku burburtay. diyaaraddaas oo magaceedu ahaa Lion Air Boeing 737 Max ayaa 2018 ku dhacday badda Java wax yar kadib markii ay hawada gashay. shilkaana wuxuu noqonayaa shilkii labaad ee ugu weynaa ebid ee ka dhaca dalka Indonesia. maxay kula tahay adiga?